Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya xalay waxay martigelisay kulan muhiim ah oo ay yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ee ku mideysan madasha samata bixinta dalka, kaasi oo diiradda lagu saarayay xaaladda siyaasadeed ee dalka ee kala guurka waqtigan taagan. Siyaasiyiintan ayaa ka hadlay qodobo muhiim ah oo mustaqbalka dalka muhiim u ah. Kulankan waxaa ka qayb galay xildhibaano mucaarad ah oo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan iyo siyaasiyiin ururo bulsho rayid ah. Wararka intooda ugu badan ee halkaasi ka soo baxaya ayaa waxa ay sheegayeen in mucaaradka ay si gaar ah uga doodayeen nooca doorasho ee dalka laga qaban karo, gaar ahaan haddii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu mar kale isku soo sharxo kursiga ugu sarreeya ee dalka ee madaxtinimo. Qaar ka mid ah madaxda mucaaradka ayaa muujiyay walaac ku saabsan sida ay u arkaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan muddada kooban ee u harsan uusan ku qaban karin doorasho hufan oo waqtigeeda dhacda. Khilaafkan ayaa salka ku haya arrimo ay ka mid yihiin sida loo wajahayo qaabka doorasho ee xigta, in dowladdu ay ku adkaatay hirgelinta heshiiskii hore, iyo sidoo kale muddo-xileedka yar ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu haray, iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ay aaminsan yihiin inuusan awood u lahayn in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Dhanka kale, madasha mucaaradka ayaa 10-ka Diseembar qorsheynaya in markaa ay u safraan magaalada Kismaayo, halkaasi oo lagu wado in uu ka furmo shir siyaasadeed oo muhiim ah, kaasi oo lagu qiimeyn doono mustaqbalka doorasho iyo sidoo kale mowqifka mucaaradka ee marxaladda taagan hadda. Kulanka iyo sidoo kale socdaalka ayaa la qorsheynayaa in Kismaayo ay qayb ka noqoto dadaallada mucaaradka ay ku doonayaan inay markaa ku mideeyaan aragtida siyaasadeed xilli uu dalku galayo xaalad aad u cakiran.